soo dhawaada daawadayaal fiid wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya banaanka tuulada Gaarisa oo ku taalo xuduudda Djibouti Ethiopia iyo Somaliland ayaa saacado yar ka hor waxaa markaasi ka qarxay dagaal toos oo u dhaxeeya Somaliland iyo beesha Ciise maxaase halkaasi ka soconaya muuqaalkan ayaan saaxiibayaal caawa idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh saaxiibayaal caawa dalkan ku daawan doontaan haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya koox hubeysan ayaa caawa isku dayay inay dilaan ugaaska guud ee beesha Ciise isagoona isku dayga dilkaasi uu ka badbaaday dhaqdhaqaaq ceenkee ah ayaa halkaasi ka jira xilli goobtii la rabay in lagu qaarijiyo ugaaska guud ee beesha Ciise saraakiil iyo ciidamo fara badan oo beesha Ciise soo gaaray iyana saaxiibayaal waan idin la wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh dalkan ku daawan doontaan saaxiibayaal caawa haddii ay baraali laga helan waxaa ka mid noqonaya ciidamo tiro badan ayaa hadda isku hor fadhiya tuulada Ashcad kuwaas oo waa kuwa Somaliland iyo Samaroon oo doonayaan inay cashar lama iloobaan u dhigaan beesha Ciise maxaa soconaya dhaqdhaqaaqyo ceenkee ah ayaa halkaasi caawa ka jira muuqaalkan ayaa saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinaya ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeyso fadlan kanalka rukumo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysid la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag kamid noqon saaxiibada cusub ee nagu soo biiray si aan u gaarno 10,000 oo subscribe wax yar oo kaliya ayaa nooga dhiman muuqaalkan la garay like muuqaalka meel dheer ayay gaarsiisay daawadayaal mahadsanideen hagaag aynu ku bilaawno fiid wanaagsan ayaan marka hore idin leeyahay saaxiibayaal qodobkeenu ugu horeeyana haddii aan fiiriyana banaanka tuulada Gaarisa ee ku taala xuduudda Djibouti Ethiopia Somaliland ayaa saacado yar ka hor waxaa markaasi ka qarxay dagaal toos oo u dhaxeeyo ciidamada Somaliland iyo beesha Ciise tala faro way ka baxday haddii aad maqli jirtay waa tan oo kale sheekada markan waxay maraysaa in Somaliland iyo beesha Ciise ay si toos isku dagaalaan ama si toos oo dagaal uga dhex qarxo maalin alla keeno tuulooyinka deegaanada way ku wada dagaalamayaan Somaliland gardara cad ay ku wada beelaha halkaasi ku dago iyadoo shalay u xaglinaysay Somaliland beesha Samaroon iyo Gudbursuhu hadda waxa ay shaqo ka dhigteen in ay duulaana ay ku qaadaan ciidamada madaniga ee beesha Ciise walle taasna la sagama dawharine ciidamada beesha Ciisena ma yareystaano jawaabta su'aashii loo diro jawaab degdeg ay ka bixiyaan bal u fiirso hadalkaas xuduudda u dhaxaysa Djibouti Ethiopia iyo Somaliland tuulada Gaarisa ay ku taalo ayuu dagaalka inta badan xalay ilaa iyo saakay ilaa maalmihii u dambeeyay uu markaasi ka socday inkastoo saakay hore uu dagaal uusan jirin laakiin daqiiqado yar ka hor halkaasi dagaal ka qarxay intaan muuqaalkan ka hor aan soo duubin dagaalkan waxba la isku reeban ciidamada Somaliland cashar fiican loo dhigay ilaa iyo 3 gaari oo nooc Cabdibilaah qoriga dhashiika saaran ayaa laga gubay sidoo kalena 2 saban oo nooca garabka laga rido ayaa sidoo kale laga qabsaday ilaa iyo 8 qori oo AK47 ah inkastoo meedadka qaar la helay qoryo qaarna wax aan meedna la socon qoryo meel iska yaal ayaa la helay oo xogu aan helayo ay tilmaamayaan Gaarisana waxay ahayd magaalo si weyn loogu dagaalamay gudaheeda banaankeedana looga dagaalamay meel ku cusub ma ahan in lagu wada dagaalamo laakiin dhowrkii maalmood u dambeeyay xaaladdu way qasaneed sheekada haddii aad hore u maqli jirtay Samaroon iyo Ciise laba beelood oo walaalaha laba saan isdagaashay ma jirto hadda ciidanka maamulka Somaliland iyo beesha Ciise naqatay wax la isku reebanayna ma jirto hadda guuldaradu waxay dhankooda jirtaa beesha waa ciidamada Somaliland oo guuldaro ay gaarsiiyeen beesha Ciise Somaliland mana quustaan mana haraan iskana ma celin karaan raggan beesha Ciise tan iyo markii dagaalka uu bilowday hadda se xaaladdu aad ay u kacsan tahay oo maaragtay waxa halkaasi ka jiro wali dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay sameynayaan waxa laga yaabaa caawa waqti dambe inuu dagaalka mar kale dib u bilowdo oo xaaladda hadda uu markaasi ay degan tahay inay kor isku sii shararto ayaa laga yaabaa saacadaha soo socda haddii aan loo helin xal degdeg ah qodobkeena kale xigan haddii aan fiiriyana koox hubeysan ayaa saacado yar ka hor isku dayay ama daqiiqado yar ka hor isku day dilin uu ka badbaaday ugaaska guud ee beesha Ciise xogtan waa mid degdeg ah
وانا مد للربي إن لو خارجيو وجاس كجود باش عيسى وجاس مصطفى إبراهيم كدي مركي اللي شاقي إن هول قال إن بعادي هني وجي كلو عصبه ولي ماذي يدردر حوجن تن مركي صلاة وشد وجاس كباش عيسى وحاو فريد مان إذا ماذا إن هيجن بحذق جلان سراكيش هذا وكو أمري إن مال والبقى يجو مركزي أي جوجان أي كل دقائق جلوف دجالات اللعوبة بين يو إذا ماذا سمايلان وأنا مد هذا سعته وجو سداودي ديجان كشدير تولد جارسة أشعد إن برلبحلي يقول بسوا كله الدقادري يوم مالك لو أي كم تهاي إن تولد دردر يوم مارت حريرة لما أنتوا إذا ماذا سمايلان ويكسوا جين وحنا أي مركزي أي وضان كستو أو سمايلان مركز تلابسوا قدسوا تلابا كله وقدينان تاسنو حكوا عدينيسا صلاة وشد وجاس كباش عيسى يقولوا بسوا كله دردرك وكسعود isla caawa isagana wuxuu ka badbaaday isku day dila kooxo waysan ayaa rabeen in ay qaarijiyaan ugaaska xilli meelo isagoo booqasho ku jiray balse ciidamada geesiyaasha ah ee kuwa gaarka ah ee ugaaska ilaalidiisa kamid ah ayaana isla markii ku baxay arinkaas iyagoona ay dareemeen dhaqdhaqaaq xoogan kadibna ilaa iyo 3 nin ayaa la sheegay ay ahaayeen waxayna ku weysanaayeen bastoolado kuwaasoo doonayaan inay ka taqalusaan ugaaska balse markii la fahmay kadibna waxa ay dhacday inay ciidamadu israasaasayeen kadib aan guud ahaan goobta ay ka baxsadeen waxa la sheegay in mid kamid ah 3 nin ayaa la dhaawacay inkastoo dhaawaciisa aan la qaban hadana goobta ayuu ka baxsaday balse wararku aan helay waxa ay tilmaamayaan in dhiigii uu ka daatay iyo waliba sidoo kale la arkayay markii dhaawac uu ahaa ay dib u gurteen ay qaateen ugaaska waa la raadsanayay maalmihii u dambeeyay wuxuuna ahaa mid muhiim ka ah beesha ciise dhexdooda maxaa yeelay ninka talada ka gooda isaga waaye ninka amarka bixiyo waa isaga ninka kaliya ee beesha ciise ay ku dawfeelaan samaroonku waxay la hormari laayihiin dagaal walba ay uga guuleysan laayihiin suldaanka guud ee beesha samaroon cabdirashiid doodi markii uu hadlaba cid warkiisa dhig jala qusinaysa male waa kuwa aad hadda aragteen khasaarooyinka dagaalka ay galaan jabka xoogan dilalka loo geysanayo waa iyaga waxaana aad ka garan kartaa intuu dagaalka uu socday xitaa hal maalin tuulo kamid ah meesan furan tuulo kamid ah intay dagaal soo qaadeen ama lagu soo qaaday ay jibiyeen tuulo xitaa meesan furan waana tan iyo markii dagaalkan uu bilowday beesha ciise ay gacanta ugu sareysay ay leedahay xitaa Somaliland ayaa arinka soo gashay waxaana ay dagaal kula jiraan ciisuhuna waxa ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan oo ay nafta dhigaan dadkooda iyo deegaanadooda oo ay rabaan inay hirgeliyaan maamulka Guban State sidoo kale ay hirgeliyaan buuga heer ciise oo horay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro uu gabi ahaanba kansalay balse sheekada hadda waxay u muuqataa in wax walba ay suurtagal noqon karaan beesha ciisana ay doonayaan inay soo afjaraan wax kasto ay Somaliland ay rabto iyo dhaqdhaqaaq kasto ay wado Samaroon qodobkeena ugu dambeeyana hadii aan ku soo gabagabeeyana ciidamo tir badan ayaa hadda waxa isku hor fadhiyaan tuulada Ashcad kuwaas oo kuwa markaa Somaliland iyo Samaroon oo isku dhinaca iyagoona doonayaan in ay weeraraan beesha ciise 10 fiican ay u dhigaan laakiin waxa maqli jiray maama Soomaaliyeed hore markaas u ahayd qofna si wax u arag qofna wax si u sheeg balse Somaliland iyo Samaroonku sida ay wax u rabaan beesha ciise sida ay wax u arkaysa ay rabtaa waxa ay sheegeen isku day kasto dagaal kasto weerar kasto ay soo qaadaan inay diyaar ay u leeyihiin ama hasla jiraan ama kala ahaadaan ciise warkiisu waa cadiya ciidamadan hadda ay isku hor fadhiyaana ciidamo tir badan ayay meesha sii geeyeen beesha ciise waxaana ay doonayaan inay ka hortagaan weerar kasto ay kaga imaan kara Somaliland iyo Samaroon sidoo kale waxa ay doonayaan in wax kasto oo dhibaato ah lagu gaarsiin lahaa ciidamadaasna ay ka hortagaan ayay doonayaan waxa hadda ay intan ka dambeey waxa ay sheegeen inaysan aqbali doonin dhaqdhaqaaq kasto ay soo wadaan horbood kasto ay sameeyaan Somaliland in ay diyaar u yihiin beesha ciise warkooda isma saarno waxay leeyihiin Samaroon iyo Somaliland mid ay noo yihiin cid kasto oo Samaroon ah ama Somaliland waan la dagaalamaynaa oo waan ka difaacanaynaa dadkeena deegaankeena iyo waliba sidoo kale dhulkeena iyo dadka markaasi beeraleyda ee dhibaatada ba'an ay ku hayaan beesha Samaroon oo dhowrkii bilooda u dambeeyay isku dayeen inay dhibaateeyaan guud ahaan daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo muuqaalkan haddii aad halkan la soo gaartay runtii waxa tahay qof qalbi wanaagsan
وحسنا عسلي كاغا عدسنايا inaad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la garay siina share garay saaxiibada la wadaag qaybta hoose faaladan aragtidaada noogu reeb sidoo kale la garay muuqaalkan like ta meel leer ay muuqaal gaarsiisay waa kuma sintii daawashada muuqaalkan meestinadin